baan ku bishaareeyay wadahadaladii komishanka ku saabsaneed muranka taagan aniguna ka odayeynay iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore yaashii hore may dhamaanin madaxweynuhu ergadii ma diidin waxaan ku wareejinay niman dadkii wadankeena asadka ugu badnaa lahaa ee barnaamijyada ah iyo culimadiintii baan ku wareejinay waxaan jecelnahay insha allahu tacaala anoo ku rajo weyn aan rajo weyn ka qabin madaxweyne muuse inuu wax yeeli doono inuu hadda dowrkan insha allahu tacaala wax yeeli doono maanta waxaan idiin sheegayaa komishanka iyo madaxweynaha biixi kursigiisu way isku xidhan yihiin hadday doorasho dhici weydo waxaan ka tashanaa tala la gaadhayaa hoggaanka laga gaadhaya shacbiga reer somaliland laanna waxa weeye maanta dalkeenu dowlad ka shaqaynaysa ma jirto waa stagnant wasaarad qolo shaqaynaysa ma jirto waxaa dalkeena uu ka dhigay madaxweyne muuse dukaan uu lahaa oo xaqdara kaga maqnaa 26 sannadood uu soo ceshaday uu leeyahay anaa le taasoo ka dhigay taasna wax suurto gelisa oo shacbiga reer somaliland yeelaya maaha marka waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaah waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay aqalka siiyo uu danta dalka eego maanta dalkeena niyaddii ummaddu niyad buu ku nooshahay niyad jab baa ku dhacay dalkeena niyad jab baa ku dhacay waa la sideed xoblina sameyn karnay ummaddu way kala tagtay labadii waxaan ku fahmin jirnay doorasho iyo nabadgelyo khalkhal bay ku jirtaa way laga arkay jabhadaas samaysmay doorashada hadalkeedaba iyo haafkeedaba madaxweyne muuse maskaxiisa kuma jirto wadanka maanta institution qura shaqeynaya ma jirto baarlamaan ma shaqeynayo oo ogtihiin goortii ma jirto oo dhaxalmeel gashay dowladda hoose ma jirto oo aragtaa magaaladiisa u muuqantihiin cashuur baynu bixinaa waxay naga soo noqdaan ma jiro madaxweynihii uu hagaaji lahaa in reforma sameeyo waa mujaahid dhowr xabadoodaa ku dhacay intaasuu wax experience leeyahay waxaa talo kaga soo hadhay madax adeeg talo kale oo madaxaan ku jirta oo madaxaya ma jirto intaa 2 sannadood baan u haddaan beriyey madaxaan ka dhukaday doorasho noo socoto aabahay kama dhukan way iga dhamaatay aniga inaan nin khayr ka ah oo aan ixtiraamnay madaxweyne ka dhignay endorse garaynay la shaqaynay intaan ka badan bariyaa ma ka bariyay shacbiga reer Soomaaliya ma bariyo ishiga waxaan ka codsanayaa waxaan ka shaqeeyaa dalka wada leeyahay mustaqbalku weeye 170 dhalinyaro weeye dadkeenu inaynu one voice atiraahaan no ma ogolaanayno doorasho la'aan ma ogolaanayno dictatorship